بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى وبعد سؤال ما يدي ويديه رجل ما وضعتم الله بس رجل ارتس كبحاي كجرا على سكجرا هذا اي قرتي انا كل يملي dadka takhasuska artiska ale markay farsamo noqoto tumaal baan Axmed Ismaaciil baan macalinkoodii ahaa 1988 marka bal waxaan isku dayi doonaa wixii aan mawduuca ka gartay inaan wax ka tilmaamo markaynu nidhaahno alqiyaada qiyaadadu saaf Soomaaliga waa hoggaan culimada Carabiga waxay yiraahdaan alqawd was-sawq way yiraahdaan xoolaha ka xagga hore ka kaxeeyana waa qaa'id ka xagga dambe ka kaxeeyana waa sawqi waa dareerintii ama kaxayntii qiyaadadu aslan macnaha luqawiga ay leedahay umbayt marka dhab ahaan loo eego waa hogaamin ama horseedid ama garwadeennimo waa qof horkacaya dad kale mustalax ahaana ama terminology ahaana kama gedisanata qiyaadadaasi ha ku saabsanaato qofku qudrad shakhsiya abuurkiisa alle uu abuuray inuu wax ku hogaamin karayo ama iltizaam adabiya dad kala dambeyn leh aan laakiin qaanuuniyan ahayn ama ha noqoto sulta mamnuucoo la siiyeyba inuu boos maamul joogo oo dadka ku hogaamin karo nolosha bini aadamkuna kama maaranto hogaamin waxay dhahdaan reer galbeedku hogaaminta si fiican buu u fahmay institutionska galbeedka jira bay dhahdeen hal mid ah ayaa bila hogaana halkaa midkeena waa ka burburay bay dhahdaan any institution galbeedka jira westernka hogaan buu leeyahay maamulka kala dambeyn buu leeyahay cid hogaan buu leeyahay hal institution quray diideen hogaamin waanu burburay waa qoyska galbeedka ninkiiyo gabadha waa simayeen saadaradeed midna mid ma hogaamiyo waa waxa burburay kaliya waxay dhahdaan waa meesha qura ee aanay ku adeegsanin aqoontoodii administration ama maamul ama hogaamineed nolosha binaadamku saadaradeed nolosha kama maaranto maadaama aanay nolosha ka maarmin waa sababta nebigu uu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam 3 qof oo safar ku jira safarku waa wax waqti yar oo gaaban la galo waa wax danta la leeyahay hadaf ay meel la gaaro kooban 3 qof xataa hadaatiin baa la yidho safara ku jirtaan cid haydin hogaamiso cid maamul ha samayso taasi waxay tilmaamaysaa bay culimadu yidhaahdaan sida aan bini aadamku marnaba uga maarmin hogaamintu bay yidhaahdaan marka waa awoodda uu qof ku dhaqaajin karo dad hadafkooda uu ku gaadhsiin karo waa awoodda qof bini aadami القدرة على تحريك الناس أو الاتباع نحو الهدف وقفك إنه ضدك حيو وقولك أما تارجتك أما هدفك إلا لها قارسين كرا تاسي ما وحلو دشاباه مسوى وحلة برطو سيدي دبا behavioral بلدة كورنت السايكولوجي وقضيات مرن بدن لبا اسكجرتو school of thoughts ku kala gadisayn oo ah binaadamku ma waxaan muu u dhashaa oo inuu yaro qorqorraawo bise waynu ku samayn karnaa oo wax la kasban karo la baran karo tani markaa waxay ka mid tahay waxyaabaha isweydiiyaan qiyaadada miyaa loo dhashaa iyo hoggaannimada oo markaa innaga waajibkeenu wuxuu noqonayaa hoggaanka inaynu baadi doono mise waa la dhisaa oo waajibaadkeenu wuxuu noqonayaa dadka qaadaynu ka dhigi karnaa haddii aynu farsamadeeda iyo tababarkeeda u maro waynu tababari karnaa qaada dad wax hogaamiyaynu ka dhigi karnaa labada ra'yiba dad baa ku tegay laakiin iminka waxay qaataan inta badan ay ku dhaqmaan waxay ku tilmaamaan bell distributionku waa jaraskii maxaa la yidhaahdaa baalkan soo jarasku saa uma samaysna waxay leeyihiin 1 to 2 hal ilaa 2 qof boqolkiiba way u dhashaan hal ilaa 2 qof boqolkiiba qaadanimada waa sifa
ilaahay uu siiyey oo ay ku dhashaan. baalkii iska aamus waa sifo alla siiyey bay leeyihin oo ku dhasho, marka waa by nature. tusaalayaashay bixiyaan waxaa ka mid a matalan cumar oo kale bay idhaahdaan waa dadka ilaahay u siiyey maxay by nature inuu qaa'id noqdo. waxay yidhaahdaan taa cagsigeeda 1 ilaa 2 qof boqolkiiba iyaguna wax ma maamuli karaan. waa dad natural sida alla u abuuray aan lahayn tamarta inay wax maamulaan. culamada bar baa tusaale u qaata saxaabigii la odhan jiray abidar iyo cidda lamid a oo nebigu wuxuu ku yidhi laa ta'marana calaa itnayn, weligaa 2 qof ha u talinin buu nebigu kula dardaarmay. 2 qofna madaxa u noqonin, xoola agoomeedna ha maamulin. isagoo haddana saxaabadii ugu waaweyneed saxaabada oo min uu nebigu ku tilmaamayo asdaqu lahja inuu yahay, ninka ugu warcad saxaaba inuu yahay, nin geesiya oo keligii intuu islaamay markuu islaamay nebigu yihi iska tag, yihi maya quraysh oo dhan baa ka hortegaya. intuu quraysh meesheeda fuulay tawxiidka ku dhawaaqay oo la tumay oo haddana maalinkii kusoo noqday oo waxaa samaynayay, haddana nebigu wuxuu ku yihi markay maamul noqoto 2 qofna ha maamulin. marka waxay idhaahdaan 1 to 2% bini aadamka ka midi naturally baa ilaahay u abuuray inay qaa'id noqon karaan. 1 to 2 bini aadamka ka mida percentna naturally baa abuurkoodu yahay bay idhahdaan inaanu qaa'id noqon karin. inta soo hadha markaa waa maxay? waa 96 up to 98%. waxay leeyihin waa dad la tababari karo. waa dad maxay la tababari karo haddii ay tababarkii saxa ah helaan. marka haddii la tababaro way noqon karaan qaada ama dad wax maamulo bay noqon karaan. qaa'idku ama cidda wax hogaamisa guri ha noqdo oo qof waloo inaga mudaba inta badan guri waa hogaamiya 5 iyo dhowr caruura, ama ha noqoto madaxweyne ummad hogaamiya iyo inta ka dhexle ee u dhaxaysa bini aadamka. intaasiba maamul cid haysoo tiro badan baa jirta. qaa'idku markaa waxay idhahdaan waa qof waxyaabo badan looga baahan yahay. haddaan marka soo koobo, odaygii maxwell la odhan jiray waa oday wadaad kristan oo weyn oo markii dambena qoladan leadership ka dhigtaa ayaa wuxuu idhaahdaa leader is one who knows the way, goes the way and shows the way. hogaanku buu idhaahdaa waa ninka garanaya wadada. marka hore wadada la marayo uu garanaya. waa mar labaadna waa qof isagu practically u gelaya wadada inuu raaco. waa mar saddexaadna waa qof dadka hagi karo isna wadada tusi kara. haddaynu war kooban oo kala tilmaamno waxay idhahdaan qiyaadada marka laga warramayo 2 dhinac unbay inta badan uga warramaan. mar waxay ka warramaan traits, simaad ama sifaat qofka uu leeyahay. marna waxay ka warramaan mumaarasaat, practices, waxyaabo la rabo qofku inuu sameeyo oo waxaa hadduu sameeyo uu hogaamin saxa noqon karo. waxyaabaha sifaadka ee shaksiga ee qofka simada laga rabaa, dadku dhaqanka ay leeyihiin ee ilaahay ku abuuray waa la qorqori karaa bay idhahdaan. maalan deeqsinimadu waa wax loo dhasho marka koowaad. qofbaa by nature deeqsiya, hantidu aanay wax weyn lahayn ee gacan furan. laakiin dadka kalena waa la bari karaa bay leeyihin. qofka waa la train garayn karaa ilaa ay gacantiisu ka barato maxay inuu wax bixiyo. walidalik baa maalan markaa deeqda laga warramayo qur-aanka waxaa aragteen in badanoo sakhinimo lagama warramayo. walaa yaxudu calaa طacam miskiin baa laga warramaya. ma dhiirigeliyo. yani waa trainingka qofka bini aadamka. islaamka maalan markaa waxbixin laga warramayo dadka inta badan waxaa madaxooda kusoo dhacaa dadka wax haysta. ma aha. waxbixintu waa dhaqan laga rabo qof kastoo muslima. waxa yar baa wax laga bixiyaa, caqligaa wax laga bixiyaa, aqoontaa wax laga bixiyaa. qofba waxbaa la siiyey, kartidaa wax laga bixiyaa, dadka waa la saacida. yani nebigu markuu sadaqada u tilmaamay wuxuu yihi qofka aad faraskiisa la saarto ama aad saba u sheegto ama ad caynkan u sheegto waxaasoo dhan waa sadaqa markuu tilmaamayo. it means wax bixintu maado qura maaha, wax weynna maaha inaad wax weyn bixiso.
waxaa laga yaabaa jeebkaagaba 2 shilin inay ku jirto 2 koob shaah gooya waa inaad koob shubtaa waa wax bixin waad qof kale koob siisaa idan wax bixintu bay leeyihiin waa wax qofka bini aadamka la bari karo dhaqamada qofka bini aadamka bay dhaahayaan la bara markaa qaarna qofku naturally markuu hore 60% sida uu fiicnaa waxa ka dhiman waa 40% around 20 kale waa loogu dari karaa qaarna waxa laga yaabaa marka horeba inuu 40 joogay marka masalada la eego warbaalkan ma meel baan taabanaya mise siis uu damaya iska daayay la codkaygu mala waa gaadhaya waxay dhahdaan qaarna waxaa jira inuu 40 meelahayay laakiin 20-30 aynu ku dari karno marka naturally sida alla inoo abuuray wax badan baynu ku kala gedisanay deeq ha noqoto aqoon ha noqoto waxbarasho ha noqoto dakaa ha noqoto laakiin waxay leeyihiin wax kastoo waxaa ka mid ah hadduu qofku training helo waa la ziyaadin karaa waa la kordhin karaa ilaa iyo laga dhigi karo qof waxaasi si fiican u garanaya haddaba marka laga warramayo hogaamintu leadershipnimadu managementka way ka gedisantay bay dhahay maamulka way ka gedisantay maamulista caadiga bay dhahay Peter Drucker in la yidhahdo wuxuu leeyahay management is doing things right managementku waa waxyaabaha inaad si fiican u qabato wixii shaqada lagu diray inaad si fiican u qabato doing things right laakiin leadership buu leeyahay is doing the right things kii hore wuxuu yidhi doing things right kanna wuxuu leeyahay waa maxay is doing the right thing inaad waxa si fiican u qabato iyo inaad waxa fiican qabataa waa kala macno bay leeyihin waxa si fiican inaad u qabataa waxa weeyaan qof innovation lama tihid qof ru'ya lama tihid qof horsocod kale waxaan lagu dhiibay unbaad rabtaa inaad ceebe kaaga iman aad sida wado waad manage garaysay waad habaysay tan unbaad ceebteeda iska ilaalinaysa midna waxa weeyaan inaad isku daydo opportunitieska inaad ka faa'iidayso maxaa fiican ee la qaban karaa xagee loo socon karaa maxaa lagu ziyaadin karaa shayga inaad halkiisa ku haysaa waxay dhahdaan waa kartida halka ugu liidata haddii shaqo lagu dhiibo bay dhahdeen weligaa waxaad ku dadaashaa halkii aad ugu timi meel ka hooseysa inaan lagugu imanin haddaad waxba kordhin kari weyda bay dhahdeen halkaa ku hay iyo halkaa hoos uga noqonin laakiin bay leeyihin qofka leaderka ahi maaha qof managerial ah oo waxaan inuu halkaa ku hayo ku tijaabinaya ama resourceka loo dhiibay iyo intaas uu si fiican inuu maamulo ku tala jira ee waa qof raba inuu wax cusub kordhiyo ama wax soo horseed uu noqdo haddaba haddii aynu nidhi waxyaabahaasoo dhamme waa wax qofka bini aadamka ahi uu la bari karo uu samayn karo uu wadi karo nabiguna calayhi salaatu wasalaam nin saxaabiya u yimo wuxuu ku yidhi adiga 2 khasladood oo ilaahay jeceliyay baad leeday alxilmu walanaa buu ku yidhi markaasuu wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow ma anaa kasbaday mise ilaahay baabay igu abuuray nabigu wuxuu ku yidhi ilaahay baa kugu abuuray yani by nature baad u dhalatay inaad qof degan oo kaadsiiyala tahay laakiin waxay leeyihin culamadu dee nabigu wuxuu kaloo yidhi inama alcilmu bitacallum wa inama asabru bitasabur cilmiguna waa wax ku yimaada tacliim sabirkuna waa wax ku yimaada bitasabur isa sabirsiin haddaba leadershipku waa wax la baran karo oo qof wal oo dadka ka midaba la baran karo laakiin waxbaristu waxay dhahdaan waxyaabaha qaarkoodna waa theoretical waxay u baahan yihiin in lectures un qofka loo akhriyo taa macnaheedu waxa weeyaan macrifadiisa aqoontiisa informationka uu hayaa inuu biiro waxyaabaha qaarna waxay dhahdaan waa wax training u baahan tadriibaad u baahan in la tababaro idan leadershipnimadu casrigan dambe waxay ka mid tahay waxyaabaha trainingska lagu bixiyo coaches bay maanta dunidu leeyihiin trainers bay leeyihiin loo tababaro qofku sidii uu noqon lahaa ma aha tii jaamacadee theoryga ahayd ee uu qofku dee duruus soo qaadanaya laakiin waa tababar rasmi ah noloshana waxaa la ogaaday wax badan inuu tababar ka taro culumu tarbiya oo dhan iminka inteeda badan waxay yidhaahdaan waa wax u baahan training training la-aantu waxay la mid tahay qofka haddii iminka haddaynu gaadhiga marka la baranayo theory baa la isu dhigi jiray
meelaha xaggeena theory badan lama dhiga Yurubka iyo meelaha theory baa la dhigaa class baad fadhiisanaysaa maanta dhan waxbaa la akhrinayaa waxaa la akhrinayaa waa wixii gaadhiga ugu shaqaynayay kadibna imtixaan baad gelaysaa imtixaanka theory-ga markaad baasto un kadib ayaa lagu bilaabayaa practicalka in lagu baro ka waran qof haddaynu intaynu imtixaankaasina nidhaahno dee gaadhiga wakaasi saliidana qabo kilajkana ka yaraa dhaqaaq geerkiina shantaa geer baa gale sidaa u geli ka soco yani isna wuu ku dhib mudanayaa dadka waddada marayana wuu dhibayaa mashaakilkiisu uu tara badan laakiin haddii la train gareeyo waa la gaadhsiin karaa inuu noqdo maxay good driver inuu noqdo waxay dhahdaan maanta leadershipku ama aqoomaha ku saabsiisan culumu tarbiya oo dhan aqoomaha ku saabsan bini aadamka in la koriyo dhammaantood waxay u baahan yihiin bay idhaahdaan waxay dhahdaan aqoomaha ku saabsan bini aadamka naftiisu maanta dunida cusub waxay noqdeen wax tababara oo qofku u baahan yahay from a inta looga bilaabo oo la train gareeyo up to z in la gaadhsiiyo saa awgeed leadershipku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha maanta coachingka lagu qaato ee la tababaro haddii la rabo cid in leader laga dhigo ama hogaamintiisu inay qurux badnaatana waxay ku fiican tahay inuu tababarada qaato haddaynu guud ahaan eegno ninka la yidhaahdo gaal la yidhahdo John Adair waa ninkan United Nationka kuliyadoodan liidernimada ama tababarka bini aadamka ee Torino ku taala haysan jiray waa nin jawaa'iz badan ay ku siiyeen baabkaasi trainingka wuxuu leeyahay book la yidhaahdo Leadership of Muhammad Nabi Muhammad calayhi salaatu wasalaam iyo hogaamintiisii waana ninkii qaatay afdal jaa'isa cilmi lidaara 2011 ingiriiska British Chartered Institute of Management ayuu jaa'isada ku qaatay ayaa waxa uu tilmaamayaa fikrad iska kooban oo ah qaa'idku buu leeyahay waa xoolo raac dabeetana wuxuu daliishanayaa xadiidkii nebiga ee tilmaamayey maa min nabiyin ilaa waqad raaca alghanam dabeetana wuxuu sharxayaa uun ninka adhiga raaca muxuu qabtaa ninka adhiga raaca muxuu qabtaa buu sharxayaa ninka adhiga raaca buu leeyahay wuxuu ka fekeraa the well-being of this sida ugu fiican ee xoolihiisu ay u naaxi lahaayeen oo samaysmi lahaayeen dabeetana wuxuu ilaaliyaa buu yidhi ta jaban waa kabaa ta gaabinaysa ta ciddadu ku baxday ta shinidu maxaa la yidhaahaa shilintu cuntay taa marka qofkani wuxuu ka fekerayaa buu leeyahay xoolihiisaasi dhammaantood siday u noqon lahaayeen wax fiican liidarkuna waa saasun buu leeyahay waa qof bulshada uu hogaaminayo ku tala jira keeda jaban inuu kabo oo ka shilintu cuntay inuu ka gooyo oo ka qanjaafilu ku baxeen inuu ka jaro oo well-being inuu ka wada dhigo sida ugu qurux badan leh inuu u wada taagaa buu tilmaamayaa buu leeyahay kadib wuxuu tilmaamayaa uu leeyahay qaa'idka namuudijiga ah ama qaa'idka fiicani ee sidii nebi maxamed oo kale ahi buu leeyahay calayhi salaatu wasalaam waa laba shay ama saddex shay qof kale buu yidhaha waa qof buu yidhi isagu shakhsi ahaan mutawaadic ah yataxallaa bitawaadic laakiin wayaxdaa bilixtiraam buu leeyahay tawaaduciisu maaha tawaaduc dadku ay yasaan haddana markay dadka joogto agtoodana waa qof ay ixtiraamayaan isaga waa mutawaadico qof isweyneynaya maaha jaanibka kale marka la eegana waa qof la ixtiraamayo oo la weyneynayo intaa waxa u dheer buu yidhi waa duu basiiratin wa ilhaam wuxuu leeyahay vision iyo inspiration ama aragti iyo taxfiis inuu dadka tawjiihin karo meesha mari karo waxaanu u taagan yahay buu leeyahay dadka dantooda khidmat innaas haddii aynu sidaa ku sifayno buu leeyahay qaa'idka fiicani muxamed calayhi salaatu wasalaam baa ah buu leeyahay qaa'idkii dunida ugu fiicnay saddex sifo ayuu yidhi buu leeyahay waa sifatu raaci buu wataa buu yidhi ninka xoolaha raaca adhiga raaca sifadiisii buu leeyahay buu yidhi wuxuu kaloo leeyahay buu yidhi sifada ah ashujaaci almutawaadic qof geesina ah oo dhiiran mutawaadicna ah oo diiwaaniyadiisu buu yidhi erayga carbeed buu isticmaalee carabta waa kuwan nin waliba wuxuu leeyahay meel naadiyo lagu shiro boqorada iyo madaxdooda iyo waxa kani meel bay samaystaan kaynta ku taalo khaymo weyn oo la fadhiisto dadka ugu yimaadana meesha lagu shiro diiwaaniyadiisu buu leeyahay dadkao dhan maftuux bay u tahay ma aha cid dadka in quri u soo galaysa maftuux bay dadka oo dhan u tahay
maftuuxnimada ay tahay dad oo dhan u furantay waxay faa'iideynaysaa buu leeyahy inuu noqdo qudwa, inuu noqdo qof lagu dayan karo oo ku dayashadu inay dadkao dham arkaan waxaad samaynaysa bay ka timaadaa buu leeyahy. qodobkiisa saddexaad uu ku tilmaamayaana waa alru'ya watawjiih, inuu leeyahay aragti iyo jihayn. dad baa aragti leh, inta badan dadka naabiqiinta ahi ama indheergaradkanu dha waa dad aragti leh, laakiin ma wada aha qaa'idiin. qof baad arkaysaa dhakiya, very intelligenta, intelligencekiisu 100% uu yahay, laakiin laba qof aan wadi karin. sababaha waxaa ka mida bay idhaahdaan, haddii nin dheeriya bay idhahdaan nin gaaban israacaan oo ninka dheeri wax fog arko, ninkan gaabanina aanu arkaynin wuxuu ninkani arkayo, mal xal bay idhahdaan, maxaa xala? waryaa miyaad waxaan arkay buu leeyahy, maya ma arka buu kani taagan yihi, ma arko ayuu taagan yihi. waxay idhahdaan waa laba midu, inuu qof wax qancin kara noqdo oo qofkan ka dhaadhicin kara mashaakilka uu arkayo, ama qof iithaar loo wax la qaybsi lahoo aqbala dadku inay wada socdaan oo waxa uu arkayay hadduu kani arki kari waayey ku qanca, bal wixii kale laga maarmi waayo in la qabto. labada solutionba waa laba lagu wada socon kara bay idhahdeen. laakiin hadduu cadhoodo u yidhaha waxbaba arki maayo ku hore iskaga tegayna, waxa allaaliya waxay faa'iido leeyihin ma jirto. waxaa la mid a bay yidhaheen qofka more intelligentka ah, visionka leh, wax badan arkaya, laakiin aan kooxdiisa ama qancin karin ama wadi karin. qofkii wax ugu arkaya aragtidiisana way fiican tahay, waxaanu sheegaya waa fiican yihiin, laakiin ma laha wixii uu wadi karayay. si awgeed maalan ninkan la yidhaahdo Posner waa nimay ku tilmaamaan 20 nin human resource thinkerska dunida ugu waaweyn ka mid ah. waa nin professor ah, waa professor of leadership, waana coacheska ugu waaweyn ee dunida train gareeya. Barry Posner baa la yidhaahdaa, iyo nin la yidhahda Jimmy Cosis baa jira. labada nin waxay leeyihin buug caana, buugooda dunida aad buu caan ugu yihi. waxay yidhaahdaan waa bugaagta award winningska, waxyaabaha helay jawaaista tirada badan la siiyey. waxay yidhahdaan wuxuu ku jira bugaagta yidhahdaan bestseller books, bugaagta ugu fiican ee la iibsado markay leadership joogto. buuggooda tani waa just a research, waa buug marka baabkan la eego waa bugaagta u ah bibleska. yani waxay dhahaan ilaa 2 milyan oo kobi baa laga dahbaxay. yani sideedaba marka bookska laga warramayo iyo qiimeyntooda, wuxuu hadduu yahay wax dadka oo dham akhriyaan bilbalaayiin novelada iyo sheekooyinka iyo rawaayadaha iyo waxa markuu yahay 2 milyan wax nafle maaha marka saa loo eego. laakiin waxay dhahdaan hadduu scientific books yahay, maalan book physics hadduu yahay, waxaa la isweydiinaya dee dunida imse qof baa physicska barata, waa dad yar marka sidaa loo eego. ama book programming ka warramaya hadduu yahay, dunida dadka programmingka ku mashquulsan intay leegiin. hadduu buuggaasi noqdo buug qof kastoo programmingka ka shaqeeya uu sito, waxay tilmaamaysaa inuu yahay bugaagta ugu qurux badan leh. laakiin programmerska dunida oo dham haddaynu isu geyno waxaa laga yaabaa inay 2 milyan oo qof noqonin ama 3 milyan 4 milyan oo qof. programmerska dunida oo dham waa dad yar, marka hadduu 2 milyan oo kobi buugga laga daabacay, macnaheedu waxa weeye waa buug aad u cajab qaba. buuggani waa leadership, that means dadka akhriya waa dad tirsan, bulsho weyntu shaqo kuma leh, dad kooban baa akhrisanaya. buugga dadka kooban ee akhrisanaya hadduu 2 milyan copies laga daabacay, macnaheedu waxa weeyaan waa buug aan kuwa ugu horeeya bini aadam u qaato. waxay ku tilmaamaan inuu yahay 10ka buug ee leadership ugu sarreeya, ama culumtan business books oo dhan 100ka buuga ugu mudan buu ka mid yahay. 1982 bay qoreen, ilaa iyo first editionkiisii 50th editionkiisii 2002 alifkii meelahaasuu mareeyey. waxay ku tilmaamaan buuggani waa field research, waa baaritaan dadka lagu sameeyey. waxay isticmaaleen waxaana yidhaahdaan leadership practices inventory, LPI. LPI-gani waxay yidhaahdaan waa toolka technique ugu fiican ee wax lagu baadho marka baabkan la joogo. technique-gani wuxuu ka kooban yahay ilaa 360 assessment, 360 assessment ama 360 assessment toolisa ayuu ka kooban yahay. waxay wax weydiiyeen 3 milyan oo qof,
waxa ay written form jawaab qoraala ka heleen bay yidhaahdaan 75,000 oo qof waxay raadinayeen oo baaritaanka ku wadeen hoggaanka dadka guusha u horseedi karaa waa kuma baaritaanku intaas ku saabsan yahay hogaamiyaha ama leadershipka guul horseedi karaa waa kuma waxyaabaha ugu mudan ee dadku ay doorteen waxa ka mid ah waxay yidhahdeen waa hoggaanka leh waa traitskii baa laga warramaya yani simaadkii qofka shakhsiga ahaa waxay yidhahdeen waa qofka leh al-amaana honesty iyo bay yidhaahdaan competency alkafaa'a waa qof ammaanana leh kafaa'a howlkarnimona leh forward lookingna ah xagga horena arki kara way wadeen researchkooda waxay ku soo koobeen markii ugu dambeysay statisticskii dadka ay ka qaadeen oo dhami waxay ku soo urureen bay yidhaahdeen 5 qodob qodobka koowaad waa daacadnimada waa honesty waa daacadnimo qofku inuu waxa kan uu daacad yahay wax qof wax khiyaameynaya inaanu ahayn khiyaamadu material oo qura maaha waa inaad dadkan aad maamulayso daacad u tahay honesty inaad tahay ka labaad waxay yidhaahdeen waa inuu qof aragti leeyahay qof uun dee cagihiisa arkaya uun inaanu noqonin ee qof indheer arkaya inuu yahay ka saddexaad waxay yidhahdeen waa qof inspiring ama taxfiis waa qof tashjiicin kara waa qof dadka shaqada inay qabtaan ku tashjiicin kara ka afraad waxay yidhahdeen waa competence oo alkafaa'a qof karti leh howlkara waa inuu noqdaa ka shanaad bay ka dhigeen markaa الذكاء والنبوغ intelligence يعني intelligence waxaad aragtaa in wax badan markay leadership nimo joogto laga horeeyo oo ay tilmaamayaan baaritaanadooda cajabta leh waxa kamid ah 1,500 oo CEO oo dunida shirkadka ugu weyn hogaamiya ay su'aal soo bandhigeen ah goorma ama leadersku sidee bay u gayn karaan يعني how leaders gain and lose it وسؤال أي بوجا كقريين بوجو مجا على هذا القرين وحيلين leader كوفي عن وكيف هذا وسيو يد عالم كورنا وحكون دو وحيكون شيئين أما leader كسيده بوه هلي كرابال ويري وحيكون المامن credibility المصداقية waxay dhahdeen laba shay hadduu yeesho mustaqiyadu ama credibility-gu laba shay bay ku xidhantay bay dhahdaan waa truth telling and trustworthy labadan eray waa labadii eray ee nebiga lagu sifayn jiray as-sadiq al-amin waa qof run sheegaya waan been lagu aqoonin waana qof bay leeyihin maxay amiin oo daacad leh daacada حتى ترتب إلى هجامية credibility وحكوه لكره مصداقية وحكوه لكره وين ولا وضع يشاء وسيادة عالم كورن ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وحط المامية صدح آخرين هاي لما حد لبا ليري ما أنا إيجو عذاب كله لويلي صدح ذلت المامية وحكم ده شيخ الزاني يبا ليري nin weyn oo zinaystay dee nin dhalinyaro ah waa laga eegayay zinaya waxaase nin waa yeel zinaystay waxa kaloo la tilmaamay melik kadaaba meligga waxaa loo jeedaa yani maamul nin dad u haya oo beenaala ah halkay kuwan yidhaahdeen asaadiq ayaa run ah nebiguna wuxuu leeyahay akhre kuwan ilaahayba la hadlin buu ku biiraya hadduu noqdo maxay beenaale iyo caa'il mustakbir haddaba kalsoonidu ama credibility-gu in qaa'idku uu noqdo qof la jecel yahay lagu kalsoon yahay waxay ku dhismaan bay leeyihiin labadan shay hadduu qaa'idku saadiq amiin yahay waa qof credibility leh buu noqonayaa quraankana inta badan haddaad aragto dadkii ilaahay wuxuu dirtay malaa'ig iyo rasuulba amaana lagu sifeeyey quraanka markaad eegto nabiyadoo dhamay nabi waliba muxuu leeyahay inni lakum rasuulun amiin buu nabi wala sheegaya xataa malakul jibriil ilaahay wuxuu yidhi nazala bihi ruuxul أمين بالغت المامي مطاع ثم أمين
ammaanadu asal bay ka tahay qofku inuu qof ammaano leeyahay waa asalka innaga wadannada tan waxyaabaha aadka ugu liita waxaa ka mid ah waa qadiyadda koowaad ee aan la qiimeynin markaynu leadership ka warramayno siyaasadda waxaa loo yaqaana qofba qof ka been badan yahay ama ka tuuganimo badan yahay macnaheedu waxa weya mujtamaca tuuga ayo markaynu ka ceebeynayno ma aha inaynu tuuganimada necabnay ee waa qofka qaatay baynu necabnay haddii ku reerkiinay qaato ood si aamusi lahay mashaakilku waxa weeyaan yani matalan nin baa maamul haya tuug buu noqday waxbuu xaday 2 guri 3 guri 4 guri buu dhistay markuu meesha gelayayna mid ma lahayn 4 guri u dhistay inaga waxaynu odhanaynaa waa ammaanaynaa waxaa la leeyahy wallahi ninkaasi dee 2 sanadood buu shaqeeyo reerkii guri waa uga dhisay carruurtiina biilka meel ay ka soo qaataan buu uga sameeyey waa ammaan mujtamacana wuxuu ka yahay qof ammaanan oo qof wax ka qabsaday kii intaa la mida shaqeeyay aan waxba ka soo qaadaninna war waa bahal nacso inta wasaarad loo dhiibay dhan ayaa weli carruurtiisii loo dawarayaa bay leeyihin dadminis waxa weya tuuganimadaynu isku waafaqsannay waxaynu isku haysanaa waxa weeyaan waa qofka cunaya farqa inoo dhexeeya waxa weeyaan waa kumuu noqonaya ninka waxadaya laakiin waxadidda waa wada ogolleh in wax la xado dadminis waa ummad aan lahayn markaa sifadii koowaad ama wixii koowaad aanu lahayn bay wax ku dhismayaan ama hogaaminay ku soconaysa aan jirin hogaaminta waxa ugu horeeya bay tilmaamayaan 1500 CEO hogaanku credibility wuxuu ku helayaa bay leeyihin waa inuu aaminayay ammaana inuu leeyahay shayga labaadna waxay leeyihiin waa inuu qof run sheegaya yahay innaga siyaasadda waxaynu naqaanaaba inay tahay maxay kadib ama nifaaq waxaanay dowladdu inta badan sheegto waa waxaanay qaban doonin way ogyihiin inaanay qabanaynin ninka madaxda himeel buu imanaya waa khudbadaynaya waxbuu sheegaya waxaanu sheegaya isagaana og inaanu samaynaynin idan waa been sideediyo dadka loo sheegayo waa beentu saacad dadka waa khawaysiin kartaa laakiin after 2 days or 3 days dee xaqiiqadaa la gaadhaya waxaan jirin unbay soo baxayaan saa awgeed nabigu calayh isalaatu wasalaam saxaabada markuu la hadlaya wuxuu lahaa alaa ta'manuuni waana amiinu man fi samaa waan meydani aaminayn buu leeya anigoo ah amiinu man fi samaa allaha cirka abuuray anoo ah ciduu ku aaminay waxyiga waxaanu anas ibnu malik lahaa khutabkii nebiga weer baa jirtay buu hi inta badan ku jiri jirtay nabigu ma khatabanaa nabiyullahi buu leeyay nooma khudbadaynin ilaa iyo wuxuu yidhi laa iimaana liman laa amaanata lah walaa diina liman laa cahda lah waa labadii shay aynu ka hadlaynay iimaan ma leh qofka aan ammaano lahayn iyo diin ma leh qofka aan ballan lahayn ballanku waa waxaad ballan qaaday weerad ka run sheegtaa ama wax siin ha noqoto ama wakti aad qof la ballaantay ha noqoto ama waxay doonto ha noqoto ballankaagu waa inuu run noqdaa waa inuu sidqa ku salaysnaadaa saa daraaddeed buu wuxuu leeyahay khudbad kasta uu nebigu jeediyo waxaa ku jiri jiray buu leeyahy anas ibnu malik saxaabigaasi inuu nebigu yidhaahdo iimaan ma leh ninkaan ammaano lahayn diin ma leh ninkaan ballan lahayn ka waran iyadoo nebi maxamed khudbad kasta uu jeediyo uu intaa ku daro waxay tilmaamaysaa bulshada dhexdeeda waxa kani qiimaa siduu ugu leeyahy idan waxaan leenahay markaynu soo koobno wixii diintu inoo sheegtay unbay qoladan waxbaadhe researcheska ahina kusoo gabagabeeyey researchkii bini aadamka ee field researchka ahaa ee ay sameeyeen labada professor ee dunida ragga looga dambeeya ahi ee bes seller bookska ay kusoo bandhigayaan waa research 30 sanadood socday waxay kusoo saareen waxa weeyaan waa wixii ilaah iyo rasuulkiisu ina fareen oo ah haddaad mistaaqiya credibility haddaad rabto qof hogaannimadiisa dadku ay qirayaan inaad noqoto wuxuu u baahan yahay inaad labada tan yeelato sifo asidqu walamaana mumaarasaat baa yimi markaa maxay yihiin waxyaabaa looga baahanya shaqooyinka la rabo inuu qabto qofku isla nimankaasi 5 dhaqan bay sheegeen ay leeyihiin 5taa dhaqan hadduu yeesho qofka qaa'idka ahi waa qaa'idkii dhabta aha 5tan dhaqan siday u imanayaan waxay u yeeleen waxay yidhaahdaan the 10 commitments 10ka shay ee la rabo inuu qofku sameeyo oo 5tan dhalaya shay walo ay tilmaameenba 2 shay bay leeyihiin haddaad samayso
waad wixii la timi shayga koowaad ay yidhaahdaan qofka qaa'idka ahi waxaa laga rabaa inuu noqdaa iyagu waxay yidhaahdaan model the way bay yidhaahdaan ama kun namuudajan tusaale noqo macnaheedu waa maxay waxay yidhaahdaan iyagu warkooda waxay yidhahdaan his deeds are louder than his speech bay yidhahdeen afcaashiisa ayaa ka cod dheer warkiisa waa uun ilaahay muxuu yidhi ata'muruuna annaasa bilbiri watansawna anfusakum wa antum tatluuna alkitaab maxaa ugu dambeeya afalaa tacqiluun waa maandaro inaad dadka intaad u khudbadayso ama wax farto ama shaqada intaad dadka isugu yeedho tiraa sahla yeelo adna aanaad yeelaynin waa maandaro marka waxay leeyihin haddaad rabto leader midho dhala inaad noqoto waa inaad noqotaa bay leeyihin namuudaj waxay kaloo yidhaahdaan if you don't believe the messenger you don't believe the message bay yidhahdaan haddaanad rasuulka rumaysnayn risaalada ma rumaysnid bay leeyihin qofka wax sheegaya haddaanad ku qanacsanayn waxa uu sheegi doonana ku qanci maysid qofku hadduu agtaada beenaale ka yihi ama imaanlaawo ka yihi ama qof aan waxba tarin ka yihi ama warku kuu sheegayana qiimo kuuma laha laakiin qofku hadduu agtaada qiimo ku leeyahay warka uu sheegayaana wuxuu noqonayaa maxay war aad u dhag raarayso idan message qura oo 5 qof oo kala nooci sheegeen ayaan isku dhaqan noqonaynin message waa kii uun waxba iskama bedelin message-ka la odhanaya waa kii uun ee dadka loo sheegaya laakiin dadka sheegay ayaa kala nooca raadkiisu kala nooc buu noqonayaa sababtu waa maxay bay leeyihin qofkan baan ahayn namuudajkii loo baahnaa qofkan qaa'idka ee wax hogaaminaya waxaan uu sheegayo hardware kar noqda waqtiga ilaaliya kana ilaaliya adnaba ilaalisid adoo marka yararkaagu xanuunsadaan ba jirtaa waxaanad rabtaa shaqaalu inaanu jarin ama uu soo noqdo ama ka noqdo suurtagal maaha waa inaad adigu namuudajkii noqotaa markaad adigu tusaale noqoto bay leeyihin ayay risaaladaadu gaadhayaan saa awgeed bay leeyihin qodobkani commitmentska iyagu sheegaan laba wax weeyaan bay yidhaahdeen waa maxay waa clarify values and set the example bay yidhahdaan qiyamka shaqo ama maamul ee la qabanaya waa inay qiyam cadoo dadkao dhan wada garanayay adiguna waa inaad tusaalihii noqotaa valueska waxa la rabo ee la qabanaya wax cad waa inuu yahay valuegu dadku in la isku waafaqsanyay waa inuu ahaadaa secondna waa inaad adigu tusaalaha koowaad noqotaa markaasaad samaysay bay leeyihin kii koowaad ama shaygii koowaad nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamayaa inamaa bucitu liutamima makaarim values inaan dhamaystiraa baa lai soo diray buu leeyahy waxay dhahdaan caqaa'ida iyo cibaadaadka iyo waxaan oo dhami nolosha adduunka marka la eego values bay dhalaan valueskii dhaqankii uu dadku ku dhaqmayay ayaa ka dhasha cibaadaadkani dhaqankaasay xoojiyaan caqaa'idatani dhaqankaasay xoojiyaan idan value baa ka yimaada qiyamkaas ayuu nebigu wuxuu leey waxaa la ii soo dirayba inaan qiyamka dhammaystiro waxaa kaloo lagu tilmaamaa nebigu inuu ahaa wax kasta uu dadka faray kii u horreeyey saxaabadu waxay dhahdeen wuxuu ahaa akharunaa shujaacatan wa akharunaa karaman wa akharunaa jawdan wa akharunaa wax kasta isagaa u horreeyey waxay dhahdeen qaa'idka dhabta ahi markaasuu noqonaya qof la rumaysto oo mistaaqiye leh oo dadku ay ilaahay baa qur-aankiisa wuxuu inoogu tilmaamaya مثلا ظلمك إلهي وحلي ورنا ظلمك إسكام ممنوعي إني حرمت الظلم على نفسي إذن كنا محي فلا تظالموا باليدي هيس ظلمنينا إلهي وحلي إلي يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون وحين الصمين إنهم حاولوا واضح حاول صمين استان إذا وحين لأن شيء كوات إنه بهنا وحويان هذا الربطه عدة كاد ضمبيسه aad maamulaysaa waxaad rabtay inay fuliyaan adigu marka hore tusaalihii waxaa fulin lahaa noqon qofkii loo arkayay inuu shaqada qabanayo nabi maxamed masaajidkiisii la dhisayay xataa iyadoo saxaabada wada xoog aan xooggiisa loo baahnayn ayuu muu fadhiisanay wuxuu tijaabiyey inuu isna jaajuurka iyo dhoobada wax ka guro oo heestay qaadayaan la qaado oo uu shaqada dhiiri geliyo idan waxay leeyihiin qofku waa inuu model ahaadaa markaasuu qaa'id yahay hadduu aanu se model hayno waxaana uu sheegaya aanay agtiisa ka jirin
إلهنا قرآن وحينا لي مركي أنبياء الله ورمي فبهداه مقتدي شيء قال لبعض براكتس كوبا هم بيد هذا ووجهه إنه قف كليه ماله الصعدة ولي ببيد هذين وما شاء الله الصعدين يتين رؤية مشتركة رؤية مشتركة يعني براكتس كوان كور رمي دون هذه وقت وينوسنه لكن ميدوك سونون waxay dhahdaan qaa'idku tuuliska uu haysta saddex baa ugu xoog badan bay dhahdaan maamulba tuuliska uu haysta waa saddex shay un bay dhahdaan saddexdaas shay siduu u isticmaalo ayaa inta badan natiijadu ka dhalataa saddexda shay waa saddex shay oo nolosheena caadi ku ah laakiin u baahan inaynu saynu u qiimeynayno qiimeyn gaara siino shayga koowaad waxay yidhaahdaan ee uu haystaa waa aliqnaac inuu dadka qancin karo waa kala laba bay dhahaan qofka inaad amar siiso iyo inaad qanciso inta badan meelaha aan fikradaba laga aqbalin baa awaamirta ka socotaa athaknaat alcaskariya askarta lagama ogola inay fekeraan waa loo fekeraa waxay dhahaan askarigu caqliga waxa la yidhaha meel dhig saa daraaddeed waa loo fekeraa therefore waa awaamirun subaxii ninka meesha haystaa markuu isa soo taago saaka shaqadu waa caynka ayaa caynka waa saaya sidaa saasaa la qabanaya cid odhan karta oo maxaynu waxaa u qabanaynaa ma jirto ama maxaa waxaa loo samaynaya meesha waxay idhaahdaan tuulka ugu wanaagsan ee uu maamul adeegsadaa ama leader u adeegsadaa waa iqnaac saa daraaddeed kuwan gaaladu waxay idhahdaan ninka madaxda waxa fiican inuu karisme leeyahay inuu codkar yahay inuu waxan maxaa lagu falayaa waxaa lagu falaya inuu dadka qanci karo weedhiisu inay noqon karto weer dadka gasha tusaale kooban nabi maxamed siduu waxa kan u adeegsanaya calayhi salaatu wasalaam isagoo masaajidka fadhiya oo majlis fadhiya masaajida oo saxaaba la fadhido ayaa nin yaroo dhalinyari u soo galay dabeetana wuxuu codsi buu keensaday codsi masaajidka iyo nebiga iyo saxaabada agtooda qariib ku ah codsiguu keensaday waa maxay waxaan rabaa anuu nin dhalinyaro baan in zinada lay fasaxa buu yidhi halka suuqgalka lay ogolaado codsi abuu wataa waa la soo badheedhay oo meesha nabigu fadhiya saxaabada jooga ayuu codsigaa keenay dabeetana waa lagu qayliyo warkaadiya buu nabigu yidhi warkaale soo dhawow buu ku yidhi soo dhaweey dabeetana xiwaar buu nabigu la galay wiilkan wuxuu yidhi waxaan ku weydiiyey hooyadaa ma la jeceshay waxaad rabto waxaasuu yidhi maya ilaahay rasuulkiisiiyo hooyada in cid ka sinaysato may ma rabo markaasuu wuxuu weydiiyey walaashaa ma la jeceshay may dumarkii hareerihiisa ninkan ku xeeraa ee caarka waxay soomaalidu taqaanaa ayuu weydiiyey eedda habar yar walaal inantaa dashay inta midna inay xumaato meedashay markaasuu yihi may suu yihi haddaba dumarka kalena raggun bay hooyadood iyo eedadood iyo habaryartood iyo kan yihiin markuu wiilkii la hadlay ee uu qanciyey ayuu nebigu u duceeyey haddana laabta intuu gacad ka saaro wuxuu yidhi ilaahay uu dembigiisa dhaafacay waa u duceeyey wiilkii dhalinyarada wuu ku qancay waxay yidhaahdaan gabadh dambe isagoo eegaya lama arag uma jeedno ducada iyo warkan dambe uu nebigu u sheego o dhan waxaynu uga dan leenahay wuxuu ninkani sheegaya wax sharciga o dhan ka soo horjeeda wax ila aqbali karta ma aha aayaadka zinada ka warramaya waxay soo degeen maka intii la joogay xuduudda tacsiirka la marinaya ama ciqaabta la marinaya ama waxaasaa markii dambe soo degay laakiin aayaadka nahyinaya fi suurati alisra walaa taqrabu zina iyo aayaad ka warramaya waxay soo degeen maxay maka zinadu waa mamnuuc shareecada islaamiga wax la wada garanayay haddana lama odhanin wariya zinadu waa mamnuuce waxaa la tijaabiyeen maxay la qancin karo waxay dhahaan usluubka ugu fiican waa qancin maalan waxay dhahdaan dowladaha ama madaxdu ama shirikaadka ragga haysta marka ay rabaan inay qanciyaan ama dadkoodii hantiilayaashaha shareholderskii waxa kan ama dowladda nimanka madaxda ahi marka ay rabaan inay qanciyaan bulsho weynta mucaarad baa jiro oo dee dadka wax ku afuufay dhib kalea jirto oo la yidhaahdo aطumuux اlbashari hanka bini aadamka lama buuxin karo wax kasta haddaad qabato dadku wuxunbuu dareemaya un inta dhiman buu arkaa moslina koobka inta dhiman baa xoog u muuqata
waxaad wanaajiso oo dhan inta badan dadku ma arkaane waxay arkaan maxay waxyaabaha aad qaladay waxay dhahdaan qofka maamulka ahi ama madaxda ahi ama wasiirkii ama madaxweynihii difaaca ugu fiican uu sameeyaa waa maxay bay dhahay dowladii bay dhahaan waxa ugu fiican ay isku difaacdaa waa laba shay labadaas shay hadday sax yihiin bay dhahaan way isdifaaci kartaa haddii kalena waa adagta inay isdifaacdo waayo marnaba bini aadamka dumuuxiisa ma buuxin kartid waxa ugu weyn ee la isku difaacaa bay dhahdaan waa asharciya iyo walxisaa'iyaat bay dhahdaan waa qofku inuu meesha tan aanu boobina inuu xaq u lahayo sharci ku yimi yani booska madaxweynenimo booska wasaare inuu sifo sharciya u soo maray dee meel uu dadka ka boobay ama ka xoogay inaan ahayn ka labaadna bay yidhaahdaan waa ixsaa'iyaat waxqabadkiisoo tira kooban inuu sababa haday dowladda ka waranto sanadkan 2,000 oo kilomitr oo wadda baanu dhisnay 200 oo kun oo iskuul baanu hagaajinay intaasaan hagaajinay waxqabadkii baa muuqanaya hadduu ninka shirkadda haystaa tilmaamo inta branch cusub la furay inta waxa soo kordhay inta lacag soo korodhay koolsku siday u tiro bateen waxana siday u tiro bateen percentku halku marayo ixsaa'iyaadka markuu soo bandhigo waxa muuqanaya qofkan waxqabadkiisii waxa la mid ah qof kasta oo shaqo haya ninka idinku hooseeya leen maanka ama meesha jooga hadduu tilmaamo sanadka kan 2,000 oo leen oo go'ay waan xidhay 3,000 oo leen oo cusub waan geliyay 4,000 oo leen oo cilad lahaa waan ka saaray intaas waxaad oranaysaa qofkani waxbuu qabtay yani madaxaaga wuxuu keenayaa wixii uu qabto laakiin hadduu subax walba sii kalo soo kalo aanu waxba kuu sheegin oo soo qabto hadhow departmentkaasi wuxuu madaxda ka sareeya ama cid ka sareeya uu ku qanciyaa ma jiro marka waxay yiraahdaan iqnaac hadaad rabto dawladeed shirkadeed waxa kan waxa ugu weyni waa qofku sifo sharciya inuu waxaan u qabtay oo booskan si sharciya u joogay iyo tira koob bay yiraahdaan waxa lagu sameeyo idan madaxii waxay adeegsato oo dad ku qancisa bay yiraahdaan ama ay hoggaanku wuxuu wax ku maamulo saddexda shay ugu qiimaha badan bay yiraahdaan waa qancin abaalmarin iyo ciqaab inaga dhaqanka Soomaaliga ka u dambeeya u horeeya qof kasta oo qalad jabiyay waa in la ciqaabaa wax kasta oo qof galo marka inaga xeerka ciqaabta madaxeena uu ku weyn dhaqan ahaan ilaa iyo malcaamada ka soo bilow ilaa iyo malcaamada marka ka soo bilowdo yararkaas quraanka waxay u nacayro shil la dhacay inaga xeerka ciqaabta maxay waxa koowaad la sameeyo laakiin waxay yiraahdaan maamulaha rasmiga ah saddexdan shay ba ah bay yiraahdaan waa tooliska ugu weyn ee qofka maamul haya oo adeegsada bay yiraahdaan waxa ugu qurux badan bay yiraahdaan inuu qofku dadka qancin karo waad wadan kartaa bay leeyihiin qofka hadaad qanciso waxa ku xiga bay yiraahdaan qofku inaad maxay abaal marin karto abaal marku hanti maaha inagu inta badan abaal marka waxaanu naqaanaa hanti abaal marka waxa kamid ah qofka inaad ku ixtiraamto shaqada waxa kamid ah inaad dhiirigeliso dhiirigelintu waa weer fiican oo qura inaad ku tiraahdo qofkan inuu wixii qabtay inaad u mahadnaqdo markuu shaqada soo qabto thank you inaad ku tiraahdo yani waa tashjiic waa abaal marin ilmahaga yari inagu waxaynu naqaanaa maxay dhahaan la shukra ala alwaajib waa qaldantahay waajibku baba laga shukri naqaa hadda tiraahdo la shukra ala alwaajib qofka ma dhiirigelin ما قفكي ما وحي وقبتي وواجب كيسي وكسو بحي لكن هذا انا وحو كاسوغايي ان اد ريكوغنيشن لا تيمادو ان اد قرتو هذا waxay yiraahdaan qofku waa inuu inspiration leeyahay waa inuu ilhaamin karaa dadka waa inuu riyo tusi karaa ay ku socdaan iyo meel ay u jeedaan waxay inspiration kaasi wuxuu ku yimaadaa bay dhahay laba shay waa envisioning the future bay dhahdaan meesha loo socdiyo muuqaalka inuu qofka tusi karo iyo bay dhahay enlisting others marka inuu soo koobno waa masalada aan lahayn enlisting the others waxa weeyaan qofkii naabigada waxay meel fog buu arkayaa dee dadkana inaad soo kaxayn karto meesha ay kula arki karaan ama tusi kartid ee kaliya aad ordin ka saddexaad waxay ku tilmaamaan in looga baahayo shaqada inuu qabtaa waa challenge the process bay dhahdaan shaqada processka ay marayso in challenge garayso oo waa maxay najaax iyo guushu bay yiraahdaan guul waa laba shay oo la isku daray bay yiraahdaan ba guul sameeya labada shay la isku daray waa maxay waa al fursa wal jaahiziya bay yiraahdaan
inaad fursa jirto haddaan meelaan opportunity ka jirin dee guul ka gaadhi maysid ka labaadna waa inaad adigu marka fursaddu timaado qof u diyaara inaad ahayd haddaad markay fursaddu timaado kabashkabashalaysoo tidhaahdo waxaasaynu u baahanayna guulaysan maysid therefore waxay idhahdaan haddii aad rabto broseska shaqadaadu siday u socotaa inay qumanaato waa inaad noqotaa qof arki kara furaska yaalla مثلا telecommunication baad ka shaqaynaysaa waa inaad arki kartaa furaska waddanka yaalla maxay yihiin kuwa muuqan karaan kow ka labaadna waa inaad diyaar u tahay oo fursaddaas aad uga faa'iidaysan lahayd inaad diyaar u tahay markaasaad gaadhi kartaa bay yidhaahdaan guusha la sheego marka broseska waa inaad challenge garaysaa bay yidhahdaan tusaalaha waxay ku bixiyaan nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu tijaabiyey cid qaadata inuu helo tolkii way diideen ciidanna ma haysto dowladna ma leh dhaqaalena ma haysto wuxuu tijaabiyey cid uu magangeliye ka heli karo oo xorriyaddaas siin karta inuu diinta dadka gaadhsiiyey inuu helo dabeetana qabaa'ilkii carbeed ayuu xajka u tagaa kuwan u sheeg kuwan u sheeg kuwan u sheeg kuwan waa la soo diidaa waayo dee mararka qaarkood challengesku siday ugu adkaayeen dee adeerkii ruma baa daba socday ka warran haddii adeerkaa lagu daba dhigo adeerkaayo aabbaha la dhasho meesha istaagta bay dhaa ka yaranaa adeere waa been wuxuu sheegayaaye waxba kama jiraan dadka intaad umalaynaysaabaa wax kaa dhegaysan lahayd yani adeerkii abilaha baa daba taagan oo le yarkan waa saabi diintu ka baxaye waxbaa ka dhegaysanina qabaa'ilkii markaa qabiilkan u tag waa rafdiyaan kan kale u tag waa soo diidaan kan kale u tag waa soo diidaan ma yidhi war nagadaa meesha tan waxba la qaban kari maayo maya he challenged the process isku day inuu processka challenge gareeyo culamada taariikh qaar ka mid waxay sheegaan 15 reer baa diiday bay yidhaahdaan laakiin at last muxuu helay qola aqbashay ugu dambeyntii ansaar baa aqbashay dabeetana waxaa suurto gashay inuu ballan la galo ay ballanka oofiyaan oo dabeetana laba goor ay u yimaadaan oo labadii goorba ballamo la galo oo la aqbalo oo cid u diro oo meesha la sii hagaajiyo oo dacwo laga sii sameeyo kadibna uu hijroodo kadibna naf iyo nafiisba idan processka wuu challenge gareeyey processku markuu bilaabayba najaax ma gaadhin guushu markiiba instantaneous ma ahayn laakiin markay 15 qabiil diiday ayuu noqday kii 16aad inuu maxay suurto gasho inuu gaadhi karo idan waxay yidhaahdaan masaladan ay sheegayaan waxay iyagu yidhaahdaan experiment and take the risk bay yidhaahdaan waxaa experiment gara riskigana aqbal maalin walba lama guulaysto fashalkaagu waxaad wax ka barataa ha noqdo yani fashalku bay yidhahdaan inaad wax ku fashishaa qofna wuxuu u arkaa inuu khasaaray qofna wuxuu u arkaa bay yidhaahdaan inuu maxay aqoon kororsaday waxay yidhahdaan markaad fashisho macnaheedu waxa weeyaan waxaad soo ogaatay waddo aan waddadii guusha ahayn dan waad cilmaad heshay waddada haddii la maro really waxaad soo xaqiijisay inaan ahayn waddadii guusha mar dambaanad maraynin waxaad tijaabinaysaa markaa mid kale inaad marto qodobkooda afraad waxay ku tilmaamaan enable others to act madaxda bar baa jecel inuu magaca isagu qaato wax walbana in isaga loo nisbeeyo inta badan waa dictatorship isku say yeelaan wasiirku markuu khudbadaynaya wuxuu odhanayaa madaxweynihii baa salaanta noo soo faray madaxweynaha anagoo ka tarjumayna waxaanu idhi aragtidii madaxweyne hadda waxba uga soo sheegin waayo ninkan bay ogyihiin inaanu wax kala aqbalaynin in isaga la sheega mooyaane waxay dhahdaan leadershipka dhabka ahi kaamaha bay dhahay leadershipka dhabta ahi waxay dhahdaan oo qofka dadka traingareeya ee aqbala inay soo baxaan makin ilaakhiriin bay dhahaan wafsax lahum almajaal dadka tababar oo ugu talagal waa mas'alo bay yidhahdaan ciddaan liidarka ahayn ku adag dadka badh waxay ka fekeraan waar almushaqadaada kaa qaada haddaad soo kor soo qaado iska celi dee maamule intuu maamulayay la loolamaya haddaad intii adiga lagu yidhi tababaroo horo wadaad la loolanto dee waxba socon maayaan laakiin haddii aad iyaga soo tababarto soo adiga shaqadu kaa fududaanaysa horead guulu gaadhaysaan waxay dhahaan liidarka dhabta waxaa lagu yaqaanaa bay dhaheen markuu meesha ka tago wuxuu kaga tagaa bay leeyihin dad liidaris oo wadi kara ninkaan liidarka ahayna waxaa lagu gartaa bay dhaheen markuu meesha ka tago arday isku wareegtuun buu ka tagaa cidaan garanaynin meel loo socdo مثلا waxay dhahay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam
waxyaabaha liidarnimadiisa dunidu ay maanta u ictiraafsantay waxaa ka mida bay yidhaahdeen dad aan aqoon lahayn meelaan philosophy oolin dhaqan oolin luqa oolin yacni wax la bartay jirin dad reermiyi rasmiya ah ama shubhu reermiya ku dhadhow aqoon halkaa ka jooga ayuu traingareeyey bay yidhaahdaan maalintuu ka baxay isagu iyo dhintay calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka tegay bay yidhaahdeen isagoo qaada reermigii ay qaadayiin dabeetana dunida kuwuu ka tegaa dawakiyey iyaga qaada ahaa hadduu ka tegi lahaa bay leeyihiin nooc ah tabac muriidiin hadduu ka tegi lahaa isna uu sheekhu meesha ka ahaan lahaa oo uun isaga wuxuu sameeye eegi lahaa maalintuu ka baxo dariiqadu waa baabi'i lahayd waayo awal bay muriidiin ahaayeen awal baanay ahayn idan qaa'idka rasmigii bay yidhaahdaan waa qof dadkan uu wade uu hogaaminayo u traingareeya inay noqon karaan qaadatul berrito dadkii qaadada noqon lahaa marka waxay yidhahdaan dadka barh baan jeclayn munaafasada ama aan jecel inuu isagu ahaado almathal alwaxiid waa dhib bay yidhahdaan saa daraaddeed iyaga waxay yidhahdaan foster collaboration and strength others yani nami tacaawin wax wada qabadka xooji dadka kalena xoojiyo u bannee inay shaqada qaban karaan waxay ugu dambaysiyeen iyagu ay yidhaahdaan markaa qadiyatu tashjiic oo encourage the heart oo ay ku soo koobaan dadku waxay qabtaan marka hore ictiraaf oo celebration u sameeyo faafi oo valueska iyo victorieska ay keeneen qir qofku markaa wuu sii wadayaa shaqada dee qofku markuu soo shaqeeya tiraahda waajibkaagi umaad gudatay ama wixii lagaa filayay baad qabatay that's not enough waad niyad jebisay bini aadamka waxay yidhaahdaan eraygu meel fiican buu kaga dhacaa marar badan baan maadadu gaadhin bay yidhaahdaan meeshuu eraygu gaadho qofka ixtiraam iyo qadarin kuu muujiya wuu kaala qiimo badanyay qof wax ku siiyey hantidu wax weyn maaha qofka identitygiisa iyo bini aadamnimadiisa ka mudan dhaqaalihiisa iyo hantidiisa yes dhaqaalu waa ku jiraa waxsiintu oo ilaa xad uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wax isu hadiyaya waa isjeclaanaysaane jacayl iyo maadaa la isku xidhay yani waa basharka waa ku abuurantay dee qur-aankaba haddaad akhrido xoolaha iyo jacaylkoodu waa isku naban yihin bini aadamka wainahu lixubu lkhayri lashadiid watuxibuuna almaala xuban jama xataa kuwa bixinayay maxaa lagu yidhi qur-aanka waxay bixinayaan baa la yidhi maxay calaa xubihi iyagoo jecel bay siinayaan miskiina wayatiimo ay siiyeen marka ka bixiyeyna isagoo jecel buu bixinayaa ka kalena isagoo jecel buu guranayaa weeyaan idan waa ka mid laakiin waxaynu leenahay iyadoo qura maahae qofka in la ixtiraamo oo waxqabadkiisa la faafiyo oo la abaal mariyo oo la tashjiiciyo ayaa ah bay leeyihiin wax weyn ah saa daraaddeed liaderku baynu leenahay markaynu warka soo koobno waa inu noqdaa qof dadku wada jecelyihin nabiguna calayh isalaatu wasalaam wuxuu sheegay war xulkiina ama mudankiina ma idin sheegaa buu nabigu alaa ukhbirukum bikhiyaari amwaraa'ikum wa shiraarihim madaxdiina iyo maamulkiina kuwa ugu fiican ee xulka ah iyo kuwa ugu sharka badan lama idin sheegaa buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam haa baa la yidhi wuxuu yihi kuwa ugu fiicani waa kuwa idinkuna jeceshiin iyaguna idin jecel kuwa ugu sharka badanni buu nebigu yihi waa kuwa iyaguna idin neceb idina aad soo habaartaanay necebtiin hadduu ninka madaxdii noqdo nin markuu maqan yahay laxanto oo meesha oo dham ay ku faraxda maqnaashihiisa kolley habaar buu ahaaye haynaga maqnaado hadduu noqdo waa dhib cagsiga hadduu ninka madaxda ahay markuu maqan yahay ama nin qof la tabo uu noqdo oo la idhaha wallaahi waa ninkii waa inaga maqanyaan shaqada maanta iska gejino oo loo arkayo qof ay ixtiraam u hayeen qof aanay ceeb la rabin maqnaanshiyihiisa ay u arkayaan inay iyagu buuxin karayaanna waa liaderkii loo baahnaa idan waxyaabaha aan sheegnay labadaa nin wixii ay sheegeen aan ka soo koobnay ama ha noqoto traitiska oo simaadka qofka laga raba ah ama ha noqoto akhlaaqiyaadka ama dhaqamada ama practiceska ama afcaasha la rabo
inuu qofka liidarkii qabto ha noqotee wuxuuba waa intii ilaahay kitaabkiisa ku sheegay ama sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam ku sheegay waayo waxay dhahdaan qaa'idka dunida ugu xoog badanee soo maray xataa gaal waxay leeyihin waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ma nebinimada ay qiimeynayaan maya iyagu waxay qiimeynayaan outcome-ka waxay leeyihiin wuxuu haystay wixii ugu yaraa resourcekii ugu yaraa buu haystay bay leeyihin waxaanu dhaliyey bay leeyihin wixii ugu weynaaye bini aadam uu dhalin karo qofku haddii de inaga project balaan markaad lagu idhaahdo waxaa soo qabo project balaan baad samaysataa aad ka waranto kow resourceskaad u baahantay waxaasaan u baahno kaasaan u baahno waqti intaa lago dad intaa lago shaqo intaa lago xoog intaa lago intaa marka lagu siiyo ayaa haddana wagash tahay talo muu fuli doonaa projectkii mise ma fuli doono ma sax noqon doona mala nebi maxamed intaa midna ma haysan meel cidla ah oo quraysh joogto oo diinlaawayaal joogaan oo mabda aanay rumaysanayn la rabo inuu ka dhaadhiciyo ku hogaamiyo waanu dhaqaalo haysan oo ciidan u haysan buu ayuu ka bilaabay idan waxay yidhaahdaan resource gacantiisa kuma jiraan waxyigaas iyo tusaalaha alla ahayn iyo alla subxaana wa tacaala gargaarkiisa waxaanu dhaliyey bay yidhaahdaan isbedelada dunida ka dhacay isbedeladii ugu weynaa marka iyagu gaaladu waxay qiimeynayeen qofkani wixii uu haystay practicalka iyagu ay arkayeen iyo natiijadii ka dhalatay markay isu qiimeeyeen waxay tilmaamayeen inuu yahay good leader haddaba liidernimada oo dhamme markaan soo koobno waa inuu qofku noqdo asaadiq alamiin taas buu ku helayaa kalsoonida dadkiisa ama credibility-ga uu ku helaya practice-kan ay sheegayaan haddii uu sameeyana wuxuu noqonayaa inay bulshadu hore u socoto laakiin waxaan akhriyay waa theory waa nadariyaadkii waxaa ka quman in tadriib lagu helo kuwaasi waxaynu sheegnay system loo tababaro basharku buu leeyahay oo loo gaadhsiin karo qaabkaasi in la helo iyadoo tababara ayaa waxay ka muhiimsantahay in la helo iyadoo lecture hadda waxa aynu dhignay wuxuu la mid noqonayaa theory-gii darawalnimada marka la dhigayo la sharxi jiray waa laga yaaba haddii laydin imtixaamo inaa intii qorqortaan oo guulaysataan laakiin practically ma fulin doontaan waxay u baahan tahay in gaadhiga laydin baray sida loo wado iyo inaan laydin barin wasala allahu calaa maxamedin wacala alihi wasaxbi wasalam walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin